markii ay ku guuleysteen inay soo afjaraan dimuqraadiyadda oo ay Jarmalka ka dhigaan kelitalis xisbi keliya, naasiyiintu waxay abaabuleen ololo ballaadhan oo dacaayada oo ay ku kasban karaan daacadnimada iyo iskaashiga dadka reer Germany. Wasaaradda propagandada ee Nazi oo madax u ahaa Joseph Goebbels waxa ay gacanta ku haysay dhammaan noocyada isgaarsiinta ee Jarmalka sida wargeysyada, majaladaha, buugaagta, shirarka dadweynaha, farshaxanka, muusikada, filimada iyo raadiyaha. Aragtiyo khatar gelin kara caqiidooyinka Naziga ama nidaamka dawladeed si kastaba waa laga mamnuucay ama laga saaray dhammaan warbaahinta. Sanadkii 1933 waxay bilaabeen ururada ardayda naasiyiinta iyo naasiyiinta qudhooduba inay qaadaan olole ay ku sheegeen daahirinta ruuxda Almaaniya, kaasoo ay ku gubeen 25,000 oo buug oo Jarmal ahayn. Ardayda garabka midiga ayaa isku soo baxay ka sameeyay 34 magaalo oo ay ku taageerayaan aragtida meesha lagaga saarayo ruuxda aan Jarmalka ahayn. Magaalada Berlin 40,000 oo qof ayaa isugu soo baxay si ay u dhageystaan Joseph Goebbels oo hadlaya. Qorayaasha buugaagtooda ay gubeen hogaamiyaasha ardaydu waxaa ka mid ah qoraayo hanti wadaag oo caan ah sida Bertolt Brecht iyo aasaasihii fikradda shuuciga ee Karl Marx, iyo kuwa dhaleeceeya burjuwaasiyada sida riwaayadaqaankii Austrian-ka ahaa ee Arthur Schnitzler. Qoraayada buugaagtooda la gubay waxaa ka mid ah kuwa Yuhuudda sida Albert Einstein iyo Sigmund Freud. Faafreebka Naziga ayaa sidoo kale gubay buugaagta Helen Keller. Markii ay ogaatay in buugaagteedii la gubay waxay ku jawaabtay hadal ah daaquudku ma jebin karo awoodda fikradaha. 100,000 oo qof oo ku nool dalka Mareykanka ayaa ka mudaharaaday gubista buugaagta, taasoo xadgudub badheedh ah ku ah xorriyatul qowlka, iyagoo isu soo baxay ka sameeyay magaalooyinka New York, Philadelphia, Chicago iyo St. Louis. Dugsiyadu waxay sidoo kale door muhiim ah ka ciyaareen faafinta fikradaha Naziga, halka buugaagta qaar laga saaray manhajka oo qaar kale lagu daray si ardayda loo baro adeecidda indhala'aanta ah ee xisbiga iyo jacaylka Hitler. Gudaha iyo dibadda dugsigaba dhalinyaradu waxay u dabaaldegi jireen munaasabado ay ka mid yihiin dhalashadii Hitler iyo sanad guuradii ka soo wareegtay markii uu xukunka qabsaday.